إيران iyo Mareykanka midkoodna ma rabo hadeerto in uu yiraahdo wada hadal ayaan doonaya. Iiraanna taa beddelkeeda waxay soo saartay digniin kama dambaysa oo iyadoo Mareykanka iyo Israa'iil uu dagaalku ku daba dheeraaday. Kuna xumaaday hadeerto iyagu ay doonanayaan taageero. Ilaa hadeerto waddan Iiraan taageeraya oo u soo banbaxay isla markaana sheegay inuu taageeri doono ma jiro. Laakiin hadduu dagaalku daba dheeraado wadamo kale oo reer galbeed ay ku soo biiraan dadka qaarkood ayaa wadnaha farta uga haya in culays aad u badan oo xukuumadda Shiinaha saaran oo ay saarayaan Xi Jinping xubno fara badan oo ka mid ah aqalkiisa la talinta ee hoggaanka golaha dhexe ee loo yaqaan Chinese Communist Party inay soo tarayso. Iiraan hadeerta waxay ku dhawaaqday in ay magaalooyinka waaweyn ee caalamka qarbi ay la mid noqon doonaan sida loogu kala yaacay magaalooyinkii caalamka carabi gaar ahaan kuwii khaliijka haddii ay dagaalka kusoo biiraan. Hanjabaadahan iyo warar kale oo dheeraada ayaad ku maqli doontaan tabinteena tooska ah ee barnaamijkeena waran iyo barnaamijyada kale. Waxaan rajeynayaa daawashana qiimaha badan inaad si isku xidhan u daawataan warbaahinteena Horfadhi Media Group. Wararka idin kala jabinay daqiiqad kastana ay idin soo dhacayaan 10 daqiiqo hal war oo cusub oo markaasi dabka naga soo qaaday aan ku eego markaasi warbixinaha ugu horreysay sida muuqata Mareykanka iyo Iiraan mid walba waxa uu diidan yahay inuu isagu wada hadalka bilaabo. Trump waxaa haysta saddex cadaadis oo gudaha iyo dibadda ah. kow midu laba waxay ka haystaan gudaha waata koobaade dadka Mareykanka ee shucuubta oo iyaga cod laga sugayo door weyn ku leh go'aaminta masiiriga arrimaha qaarkood waxay soo taray caaridaada dagaalkan ay u qabaan ka qabaan iyo waliba in aysan ku qanacsanayn waxa dowladoodu u sheegayso waxayna u arkaan dagaalkan in loo sameynayo Iiraan in loo sameeyo dagaalkan Iiraan in loogu qaado in loogu khaymeeyo Israa'iil ayna Israa'iil lagu raali gelinayo waana hadalhayntaasi si weyn bay u socotaa waxaana isqabsaday baraha bulshada ma jiro qof doonaya inuu u dagaalamo Iiraan oo macnaheedu ay tahay dadka Mareykanka Israa'iil ma jiro qof doonaya inuu u dagaalamo oo macnaheedu ay tahay ma jiraan dadka Mareykanka inay ku qanacsan yihiin in Israa'iil loola dagaalamo Iiraan iyadoo loola dagaalamayo yani sidaa daraadeedna waxay soo badanaya markaasi halkudhigyada noocaas taasi waa cadaadis dhinaca shucuubta oo sii karaya. Cadaadiska labaad ee Trump saaranigu waa dhaqaalaha isla markaana iyadoo shidaalku cirka isku sii shareeray dadka Mareykankuna jeebkooda durbaba ay ka dareemeen dagaalkii 7 maalmood kaliya soconaya maalintii sideedaad hadda soconaya in ay durbaba dareemeen xanuunka dhinaca dhaqaalaha oo ah meesha qofka Mareykanka isagu ku xisaabtamo awalba iyada oo inflationka waxa loo yaqaano ama sicir bararka dalka Mareykanka uu cirkaasi marayay waa halkii Soomaalidu oo jirtay awalbana ooyayba weyle ugu sii joogsatay ayay arrintan la masiimita waxaana u arkaan in dhibaatooyinkoodii awalba jiray uu ugu sii daray Donald Trump oo kale oo aysan dan iyo halak toona kala hayn oo ay ku jirto markaasi dhaqashada dhinaca dhaqaale ee maalin walba la leeyahay ilaa iyo 900 milyan oo dollar 1 bilyan oo dollar ayaa maalin walba baxaya dhanka nidaamka difaaca nidaamka weerarka weerarciska gantaalaha tar systemka khatarta iyo waliba colaada kale ee loo soo jeeday da'yarta Mareykanka ee aan ciduna ku qanacsanayn inay dalka Mareykanka maanta ay ka difaacayaan khatar ku soo socotay oo uga soo jiijilahay dhinacaasi. Arrinta saddexaad ee Trump haysatana waa caalamka. Trump ayaa waxa uu la dareemayaa in gabi ahaanba go'doon ka galay dunidii gaar ahaan reer galbeedka gaar ahaan bal qiyaas iyadoo oo dowladda Mareykanku dagaal ay qaaday 50kii sanadood ugu dambeeyay aysan maalin qura ka harin xukuumaddii daba ordi jirtay ee London oo maanta ka harsan halkaas oo ah meeshii ugu dambeysay ka fadhacda waxaana loo arkaa dagaalkani inuu isaga ku gaar yahay taa waxaa ka sii daran in gabi ahaanba uu Trump uu tuucinayo oo uu dalbanayo mar walba in loo hiiliyo taasoo iyaduna meesha ka saaraysa tookhii trabeelka ay Donald Trump uu lahaa dagaalka maalmo iyo saacado gudahood ba ku soo afjarayna annagana ku gacan sarreyn intaa marka laga yimaado Iiraan cadaadis ba saaran cadaadiska Iiraan saaran waxa weeye dhinaca hoggaanka waddanka si rasmi ah loo shaacin wala wararku xaqiijinayaan in hoggaankaasi lagu faataxaystay mar hore isla markaana qofkii loo magacaabi lahaa loo magacaabay shaqadana uu wado Iiraanna ay ugu tala gashay maalmo inay dib u dhigto in la shaaciyo ilaa iyo inta ay warku soo kala cadaanayo haddana wadamada Yurubiyaanka ayaa dhanka kale waxaa marka dambaysa ku soo badanaya cadaadiska trabeelka ah ee Mareykanka iyo Israa'iil uga imaanaya wadamo badan oo Yurubiyaan ah Israa'iil faray ka haysa sidoo kalena Mareykanka wadamo badan oo reer Yurub dhaqaalahooda ay ku tiirsan labaduba ayagana culays gaar ah haysta Iiraan culayska kale haysta waxa weeye in ahaanba wadamadii Carabta oo ay u xulatay inay ka burburiso goobo istiraatiiji ah oo dhaqaale ay marwar ka dambaysa iyaguna ay ku soo ruqansan karaan taasna waa cabsi aad u xooggan soo daraysa laakiin Iiraan waxay isku dayaysaa in ay stick and carrot strategy isticmaasho macnaheedu ay tahay marna inay suba salaaxdo marna inay xanuujiso wadamada Carabta waxayna leedahay marka ay suba salaaxayso annagu idinka idima jeedno walaalada yaa tihiin
dhulkaysa dhacsa way u galgalanaysaa waxayna leedahay waxaanu ishaynaa cadowgayga waa nagu soo duulay idinkana la haystayaal baad noqoteen gobolladii baa nalaga soo duulaya magaalooyinkiinnii iyo dhulkiinnii iyo dekadihiinnii iyo garoomadiinnii iyo baddiinnii sidaa la ajrigeed dee meesha laba maroodi ku diraan caws ayaa ku gacan galay iska dulqaata oo haddaad iyaga u dulqaadanaysaan iska saari weydeen anaga noo dulqaata marna gantaalihiisay usoo socdaan bay waxay kusoo dhacayaan goobo shacab degan yahay goobo marka istaraatiiji ah goobo dhaqaale oo intaas waxayna tuunsan yihiin carabtu inaysan iiraan gantaalahan habow ka ahayn ee kismo ka yihiin oo ay doonayso in barnaamijkeeda ololaha cunaqabataynta caalamka ay saarayso ay si isku mid u gaadhsiiso goobaha shidaalka goobaha dekadaha si uu sablayga adduunka u kala go-o yacni shixnadaha adduunka u kala go-aan isla markaana ay u yaraato markaasi wadawadeed qof walba wadan kastana uu contribute gareeyo markaa oo wax ku darsado dagaalka si loo jooji lahaa marka qayla gardhaweys waayo waxaad ogtiin japan oo dhinacan barigan fog ee adduunka ah ilaa iyo australia oo dhinaca pacific ah galbeedka adduunka ugu dambaysa cirifyada kale ee caalamka oo dhan inay gebi ahaanba si isku mida ay uga danqanayaan soomaaliya iyo ilaa iyo soomaaliya ayaa laga dareemayaa markaas shacnadihii oo yaraaday waxaa laga baqaya in maraakiibtu ay sii yaraadaan maalmaha soo socda oo ay qaar ka mid a productyada la sugayo oo dhan ay noqdaan kuwo gabaabsi ah oo aan la helin xitaa ama adkaada ilaa xad yurubiyaanka markaa haddaba hadeerto waxa ay iiraan u dirtay hanjabaad kama dambaysa yurub haddii ay kusoo biirto dagaalka magaalooyinkada waaweyn camiran maanta ka aamin noqon maayaan gantaalaha iyaga iyo iiraan ka degtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha dibadda dalka iiraan majid takhti rafanjani ayaa waxa uu sheegay in aysan dowladda iiraan damaanad qaadi doonin halkii wadan ee kusoo biira dagaalka iyaga ka dhankaya duulaanka gardarrada ah isku xidhan inuu ka ammaan noqon doono waxay ugu yeedheen markaasi gantaalaha iyo gumcyada wadankanada isagoo tafaasiil dheer ka bixday ayuu yiri gebi ahaanba wadamada reer yurub waan ogeysiin waxaanan u sheegnay wax walba tv-ga france 24 oo warayskii qaadiyay takhti ayuu u mariyey hadalka wuxuuna sheegay in uu hadeertana uu la hadlayo shucuubta wadamada waan ula hadalna si fardi ah ayaana ugu dirnay telefoonno isla markaana aan ugu dirnay anagoo marana jannada dhinaca dunaasiyad hadeertana shacabkooda ayaan ogeysiinayna ayuu kuyiri france 24 wuxuuna u sheegay in haddii ay dalalkaasi kusoo tala xumaystaan inay ku biiraan dagaalka kolkaana ay go-aansadaan si indhalabeera inay qeyb oga noqdaan duulaanka iyo weliba wuxuu ugu yeedhay markaasi hujuumka wadankooda ka dhanka ah waxay noqon doontaa in gufaacooyinka ka dhasha arrintaasi ay ka dhalan karto dhagay faray baris london berlin iyo gebi ahaanba abudabey iyo siday noqotay dubay iyo kuwait iyo dooxa isku mid unbay noqonayaan sidaasna waxaa laga wadaa inuu ka wado hubka iyo saaradda aan haysana si liishaaman otomatisanaya magaalooyinka u dul fadhiisa doona waxaa la arki doona magaalooyin yurubiyan oo laga qaxay ama laga kala yaacay taasoo markaa dhali doonta dagaalku markaa inuu dagaal adduun noqdo wadamadaasna ay kusoo biiraan wadamo kalena ay kusoo biiraan kadib haddii wadamadaasi ay dagaalka galaan waxaa dadka qaarkood waxay leeyihiin ruushka oo ugu liita maanta quwadaha jira wuu soo gelaya sababtoo ah wadamadii inta badan isaga dagaalka ku hayay ee dhibaatada ku hayay la goonayay intii uu dagaalka 4 sanadooda ku jiray Ukraine uu la dirirayay ayaa waxaa ugu dhacayaan god kadibna wuxuu noqonaysaa un garuunka ii keena taasina waxay ka dhigan tahay markaa hilaadaha aynu bixi karno ama sheegi karno dal kasta oo ku soo biira duulaanka gardarrada ah Iiraan ka dhanka gebi ahaanba definitely wuxuu noqon doonaa ayuu yidhi mid sidoo kale u ah markaasi bartilmaameedkeena mid sharci ah xaq ayaana u leenahay retaliationka inaan ku samayno ama argoosi aan loo kala go-in ay yidhahda haddaba iiraan iyo maraykanka labaduba waxay u egyihiin midkoodna in uusan haba yaraatee hadeerta wax yuhuuna ama wax abateeta u haynin in ay wada hadal galaan dowladda madaxweyne Donald Trump hadalka ugu dambeeyay laga baqro waxay ahayd wada hadal ma jiro ilaa iyo isdhiibis shuruud la'aan ay dhacda mayaan iiraanna waxay tiri waa in lala hadla gardaroolayaasha cid kastoo doonaysa inay nabad tiraado waa ka shaqeynana ninka gardarrada iyo duulaanka soo qaaday iyo xaq loogu leeyahay in lala hadlo isaga marka horeysa la qabto madaxweynaha wadanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaana qofkii ugu dambeeyay arrinta ka hadlaha wasiirka wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Iiraan ayaa isaguna sheegay in aysan gebi ahaanba u cadayn isaga wax macnaa oo u soo kordhinayso maanta in Mareykanka miis wada hadlo lala fadhiisto ama cid qaba kartaaba aysan jirin sida laajigeed wuxuu sheegay bal horta gumciyada hubka ay ku tooqayaan in ay wada ciyaaraan isaga iyo iyaga ilaalada kacaanka wadanka Iiraan marka ay sanka xabada ka keenaan kolka miiska wada hadalka hadii la imaanayo
la eego ama la fiiriyo, laakiin wuxuu meesha ka saaray inaysan inaan wax abateeda taas u ahayn. Sacuud Bashishekian waxaa hadalkiisi kasii dameeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha dibadda ninkan takhti wuxuu sheegay in maraykanka aan laba aamini karaynin. Wadamadu waxay ku wada hadlaan marka u horeysa marka ay miiska wadahadalka isugu imaanayeen si aaminaad ah qofkani inuu daacad ka yahay wada hadalka, ugu yaraan in waxa ajandaha laga wada hadlayo guul laga gaadho ma muuqato sinaba arrinta noocaas oo kale ah. Dhinaca kale Mascuud Bashishekian ayaa sheegay dagaalkan ujeedooyinka ugu waaweyn inaysan caalam islaami fahmin. Hadal la yaab leh oo u muuqday in uu ku adreys gareynayo ama uu ku ugu qudbeynayo dunida islaamka iyo Mascuud Bashishekian uu sheegay. Wuxuuna isweydiiyey bal inay fahansan yihiin hogaamiyaasha caalamka islaamka ujeedada Netanyahu dagaalkan Iiraan uga soo qaaday oo u jirta 2,000 oo kilomitir ku dhawaad. Wuxuu yidhi ma aha ujeedadu Iiraan inuu dhulka qabsanayo, laakiinse ujeedadu waxa weeye horta marka horeysa arrintan waa duulaan dhuleed, waxaana uu doonayaa in si Iiraan loogu soo duulo oo wadamo badan oo caalam carabiya uu qabsado. Waana ujeedada ah haddaanu Iiraan oo 2,000 oo sannadood loo jirta burburi karno ma waxaanu qabsan kari waaynaa Masar iyo Urdun iyo Lubnaan iyo Suuriya iyo Sacuudi Arabiya, ayuu isweydiiyey. wuxuuna ka digay in dhow garanimada hadeerta maanta taagan iyo wax magaratadu inaysan fahmi karayn ujeedada noocaas oo kale. Wuxuuna si dhiidhile u weydiistay in Benjamin Netanyahu damaciisa sida kaliya laga hortegi kara ay ahayd in si midnimo leh dagaalkan loo diido ama loogu hiiliyo Iiraan. Si kastaba ha noqotee hadalkan ayaa yimid iyadoo oo dhinaca kale ay marka dambaysa ay sii darsanayso xaaladda bariga dhexe. Dowladda dalka Iiraan ayaana wada olole dhinaca warbaahinta. Iiraaniyiintu waxyaalaha la yaab kale ay sameeyeen waxaa ka mid ah inay warbaahinta reer galbeedka ay la hadlayaan. Inta badan waxay soo safeen dhammaan dadka mas-uuliyiinta dowladda ee luqadda Ingiriisiga ku hadla, kuwaasoo si joogto ah u ogolaanaya inay waraysiyo toosa uga bixiyaan shaashadaha waaweyn ee dalalka qarbiga si ay audiensiga dadka ama dhegeystayaasha iyo daawadayaasha wadamada caalamka qarbina ay ugu sheegaan dagaalkan iyo fariimaha uu wato, taasoo kor u sii qaaday ayaa layidhi saameynta dhinaca dagaalka miidiyada oo isaguna markan laisku warmeeyey. Dowladda Maraykanka ayaana si aad u baan uga cabanaysa warbaahinta gudaha ee wadankeeda, waxayna ku eedeynaysa warbaahinta gudaha ee wadanka Maraykanku in aysan dalka u hiilinaynin, laakiinse warbaahinta ayaa isku difaacaysa in waxa kaliya ay sheegayaan ay tahay xaqiiqooyinka dagaalka iyo qorshe la-aanta aadka u weyn, iyadoo ku tilmaamaysa madaxweynaha dalka Maraykanka oo sheegtay inuu yahay taliyaha ciidanka qalabka sida inuu go-aan uu iska gaadhay dagaal aan la garanaynin meesha uu ku dameynayo.